بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channel كينا طلاب وتج جروبس وحنا هالكن مادن كسو بندونا 10 ير oo muhiima 10 kaas waxa uu ku saabsan yahay sidii aad u soo cusub lahayd data ka dhaliskareysatay ama ka format gareysatay adigoo isticmaalaya software yar oo loo yaqaano ISIS data recovery. marka anigu ugu duuban yahay waxa mar labaad ku duubayo adigu si caadi ugu duubaysa asaas ugu soo baxaya. marka waxa kala jira saddexdaas daaqadood. taa koowaad waxa weeye haddii aad iska delete gareyso siidaada ama diidaada ama iidaada oo kale waa partitionada mid kamid ah haddii aad delete gareyso si aad u soo ceshan lahayd ayaad halkaa ku dhufanaysaa. taa waxaa loo yaqaanaa complete recovery. waxa weeye imika ka soo qaad tusaalahaan hard diskiga ka crash garoobay ama ka format garoobay si aad soo ceshan lahayd. tanna waxa weeye haddii aad si khaldan gareyso faylasha iyo folderada imika labada ka goyoomayno kuwani waxa weeye waqti bay qaadanaysaa. imika waxaan doonayaa taas inaan soo celiyo flashida bal waxa ku jira intaan ka delete gareeyo aan dib u soo celiyo haddii rabiidmo. waxaan tegayaa marka hore flashtayda waxa ku jira intaa yar halkaa video iyo dhowrka sawir kulligood waan delete gareynayaa. kadib waxaan eegaynaa barimka si inuu soo celino flashtan dooranaya next baan ku dhufanayaa. kadib halkaasaad tigta saaraysaa. halkaasaad ka dooranaysaa marka waa kaas kuwa doonaysid baad tigta saaraysaa. marka waa kuwii aad iska delete gareysay ayaa tigta saaraysaa. next baad ku dhufanaysaa. marka wuxuu ku oranayaa meel dhig ama folder u samee. imika anigu halkaasaan iska dhigayaa. next baan ku dhufanayaa. kadib wuxuu ku yiri all files are recovered successfully. faylashii oo dhan waa la soo celiyey. waxaan dhigay ugu save gareeyay waa halkaasaad click siinaysaa. marka waa halkaa dhigay waa kuwa kulligood uu soo celiyey waad aragtaan. marka softwareka yar haddii rabiidmo waxaan idin dhigayaa videogan descriptionka hoostiisa. waad mahadsantihiin la socoshadiina. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.